الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين ورأينا سيدي معهم بين سعتي وحاعين كلتنا دورتي الأمم العظمى دورة الأمهات وكدع عيسى مسجد كان عمر عثمان إمغال الهديسة قلت المحاضرة التي رب سبحانه وتعالى ويقول أن نقارن ومحاضرة كهديسة موضوع أي أمد أرض بهانتهي قارهان ندق الصومالي أي سيقاره بهانيهين وموضوع كهدية عذر آفي مدينة وقولي كستقري ومدينة كرجبي وكربابي وعذر كالإلهي وقبيالة محاضرة عنوان كريم وحرمطايا حديث في رسولك صلوات ربي وسلامه عليه دعوها فإنها منتنة إن شاء الله موضوع أساس رمضان بإذنه وحال الأخرى بإذن الله تعالى وموضوع عنه الله علينا شيخنا الشيخ محمد علي البيتي فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوها فإنها ممتنة وعنوانك محاضرتنا قلبتها في العين الكرسية taas oo ka qayb ah xadiis shariifa وحديث الرسول كملا صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة وحديث قيمة ويكفر لها أحاديث الرسول كمسوبا صلى الله عليه وسلم وحوليه يسكن آية وقلنا وحول رسول كليه يسكن آية وقلنا وحلوه يقالوا عصبية أم بقبلية وأد وديت سومالي دبرن كذا إن أيدي جودة راعي وأيدي جودة كجرتو القبلية أم بقى بيالد ومشكلة أي لأنه ليهين بني آدم تربضا إسلام مركا أنا عيد الدمين أيام قرار كذا دينع والبا مقرصونا قفقرادي قرشله كما دايمونا كما نقرصونا وحكنا لنا يا ودباتو وينا مخالفات بلارن يحددوا هذا قلفسن وكي ماذا وآفر أيتها إنه كبد بادو آفذا يدا إن عدما يكبد بادو أيتها تيو رسولك كدقي صلى الله عليه وسلم كجند دقي حديث تربضا إسلام كان هو عدي إن أي كم بتاعي ميلها شيطان وضلك كسر وقاله شيطان كير على ذا كل نقضي أرنت أيضا أي ميلها سيدتك وكسر دمته وأي شيطان كسلي سبوح وكبوستي إن أي دتك يسجع عبدان وحوسر على كل نقضي قلابك يخلخلك يتفرارك اسققبسك يا واحد لمدك دحدود inuu dhigo sida rasuulku sheegay inna shaytaana qad ya'isa
أن يعبده المصلون أبدا، ولكنه في التحريش بينهم. شيطانك وكبوستي إنay dadka muwaxidiinta ama muslimiintu ay isaga caabudaan, hase ahaatee wuxuu ku qancay oo raalli ku noqday inuu dhexdooda dab iyo dakano iyo qalaanqal iyo khilaaf iyo tafaraar iyo iska horkeen uu dhexdooda dhigo. waxyaabaha ay waajibsanayso walaaltinimada iimaanka iyo mabda'a samafaridda iyo xumareebista ayaan jeclaysanay inaan kelimaad kooban ka nidhaahno qadiyadda taniyada ah oo aynu kala qaadi doono 4 qaybood. qaybta koowaad bal qabaliyadda tani la haydaarteeyey ee ceebaysan ee dulaysan xaqiiqadeedu waxa ay tahay. qaybta taa ku sii xigtaana ay tahay daliilada haydaarteynaya qabyaaladda tani. qaybta saddexaadna dhibaatooyinka qabyaaladdu ay leedahay. waxaa ugu dambayn doona xaqaa'iq oo caddaynayo qeexayo qur-aankeenna kariimka ah. bal haddii aynu isaga gudadaadegno mowduuca isaga ah, qabyaaladda madmuumka ah ee haydaartaysan xaqiiqadeedu waxa ay tahay inuu ku faano qofku qabiilkiisa, inuu ku faano nasabkiisa, inuu ku faano oo uu ka faano kuwayow kale ugu faano, oo miisaanka iyo halbeegga dadka lagu kala fadilayo uu ka dhigo qabyaaladda amba qabiilkaasi uu ka dhigo, uu qabiilkiisa ku taageero baadilka, gaboodfalka, dacdarrada iyo tacaddiga ay u geysanayaan kuwa kale. waxyaabahaasi ayaa loo yaqaanaa alqabaliya. intaa haddaynu taa uga gudubno, bal daliilada arrintan ku yimid ee haydaartaynaya amba ceebaynaya qabyaaladda iyada ah, hor iyo horaan waxaan soo qaadanaynaa aayaddeenna kariimada ah khaalidada ah oo ilaahweyne jalla wacalaa uu ku leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaa'u min nisaa'in casaa an yakunna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabasuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub faulaa'ika hum aldaalimuun. aayaddeenna tani waxa ay tibaaxaysaa oo ay tilmaamaysaa oo caddaynaysaa in ilaahay ugu yeedhayo dadka ahlu iimaanka ah, dadka iimaanku qalbigooda uu galay oo qalbigooda uu degay, oo la leeyahay yaanay quursanin oo xaqirin oo hoos u eegin qolo kale, yacni ragyuu rag quursanin la arkee, taasoo ay suuroobayso in kuwan la xaqiraya ay ka khayr bataan kuwan xaqiraya. sidoo kalena dumarro dumar yaysan quursanin oo xaqirin la arkee kuwan hoos loo eegayaa inay ka khayr bataan kuwa kani yacni xaqiraya. waxaa la yidhi ha isceebaynina, ha isugu yeedhina magacyaal xunxun. arrimaadkaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diiday oo reebay. ciddii aan arrimaadkaasi ka toobadkeeninna waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad daalimiina, dad dulmi samaynaya oo iyagu dulmi u badheedhay inay yihiin baa laynoo sheegaya. imaamka weyn alimaam xaafid ibnu kaiir ee mufasirka weyn ee qur-aanka aadka u fasiray ayaa wuxuu leeyahay ilaah weyne subxaanahu wa tacaala waxa uu reebay quursiga dadka ayuu reebay. muraadka taa looga jeedaa waa xaqirid la xaqiro dadkii baa la diidan yahay in dadka la quursado, hoos loo eego oo la yaraysto. amuurtaasina waa amuur xaaraan ah ayay noqonaysaa. waxaa suuroobaysa in kan la xaqirayo amba kuwan la xaqiraya ay ka weyni bataan xagga qadarka iyo maamuuska baa ilaahay agtiisa inay ka weyni bataan kuwan xaqiraya. oo xag ilaahay looga jecel yahayba, oo kan wax quursanaya oo xaqiraya uu yahay mid ilaahay agtiisa kan wax xaqiraya uu ka qiimo badan yahay. waxaa la caddeeyey in arrintaasi quursigu uu yahay dembi weyn oo ka mida dembiyada waaweyn, ay waajib tahay in laga toobad keeno. qofkii aan isagu toobad keenin oo aan ka toobad keenin oo ku sii cariigsadana in uu daalimiinta ka mid yahay. bal aayadda labaad ee taa uga sii gudbaynaa waxay tahay: yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إلهوين جل وعلا وحاول لي يهتديه وحن أذن أبو الرمي أذنك والنبي يبدأ وحن أذن يلي وقالوا ذكرني شعبيهم يقبيلوي دنت كذب بيسانا يتعين أقوصتان ودسكرتان حقيقة نبتي هنا وحي تهي عدة أيديكم قيمة بدن أيديكم سيدتا أيديكم كريم سن إلهي أكتيس وحي تهي عدة أيديكم عبسدة بدن لي إلهي ما وحول با وعلم الله إلهي ما حكت يكنتنا هو سهان وعك. الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تفسير كيس مركو آيات وفسره وحاويري بين تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا أن يعرفوا بعضهم بعضا إلى وين جل وعلا ومعديين إنه كان لقي شعبيه قبائل لأجل إن يسأقون صدام وقاركود قارك كلا أقون صدام ويتميز بعضهم عن بعض وأيكل الصعمان قاركود قارك كلا لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه أرنت معها لأجل إن أي سفانان وقاركود قارك كلا أي سفانان وفان يتوخان يسكريين وحلا منها أرنت معها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم. رسول كيمي يدقونا عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم وحلقها يا إلو ويولي نسبكي نكبرتا وحعاد كل عيولينا يستان رحمكي انت يقدرك لقوه قل يا هواتا وحد نسبكي نكبرتان وحي آد كل عيولينا يستان إساق رحمكينا سلة الرحم بالينا أمرين سلة الرحم كي سبوا أرن شرعا لينو أقول يا هاي ولا يسكون عيولينا أي واجب تايم يسكون عيولينا وأنا تدي رحم قوينا وربي قويس رحم قويس وربي قويس حديث كاسي أي مهد مرأينو إمام الترمذي أيا وريي حاكم باوريي أحمد يدبراني يبزار العلامة الألباني وحوكس وصاري حديث كاسي سلسلة يعني حديث سلسلة صحيحة أيوكس وصاري الجامع الصحيح انتبه وحديث صحيح حديث جابر بن عبد الله لقول اليوم وحا قوي جابر وحا ناخذ باغري مالك من ايامها الموردك ايام التشريق ايامها من خطبتي وداعة يا سقوتنت ورسولك ومد سقوتي صلى الله عليه وسلم وحن رسولك صلى الله عليه وسلم خطبتها لي أدقايا يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى انت مباوين نقف لنبا رسول كي نسو بنا وليه ضديه ربي كينا مالك خالق كينا مامل كينا يتصرف كينا اللي هو متكليا آبهينا ومتكليا ما جرتو وحكى الديراد له أو عربي وعجمي الديراد له يعني ما جرتو عجمي وعربي وديراد له يعني ما جرتو وحكو كعسي كقفت البداية يعني كبدو ما جرتو أم بك بدو كعسي وكقفت البداية يعني ما جرتو أنا هاي الله كعبسي وحلقوك لستاب والله كعبسي لان دير النمر والله كعبسي أي معها نسبك أي قبيلك أي درشة معها هذا لان دير مقصد وحل لان دير أو قبعة أو قيمة له أو شرف له أم بحمد أو بعده أم بها عساده سدو دوني بهالنقطة قفك إلهي كعب صدا وتقيقة وإلهي وحي وفري فرتومة وحي إلهي وكرر بين كرر تومة كاوي قفك حق إلهي قيمة عليه كاوي وأرد انتهاد يا بيموة حديثك أيام قيمتي سكرين أكرمكم عند الله أتقاكم
كيدينكو قيمها بدن إدينكو كريمسن اللي حقي سواك إدينكو عبسد بدن كل كاس رسولك يقول ما قارسيي أو ما أنقذبيي كل كاس سيدنا بلا يا رسول الله كل كاس رسولك يقول فليولد الشاهد الغائب متك جوجوكي كما قنها قارسيو حديث الإمام أحمد يا مسلم كبسوا صاري بيهقنا في شعب الإيمان حديث كان العلامة الألباني وحاول صحيح على سلسلة صحيحة منك شاعرك هاي الجبيع البدوع فقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر شريف أبا لهب إن أرمت أيسا دلشد أي نصب كأهي وحكت صحيح بلاغ الإسلام كون قروا غاضي سلمان عرب ما سلمان قريش ما سلمان آل بيت ما سلمان ومن الفارس وإيران سلمان كي عين كاس هاي عجبك هاي عرب تبع هاي قريش تبع هاي أي إسلام كرو قال مركو إسلام كقاتي إسلام مركها كفر قال لما تكون يدين لأنتنا وحي هوس بدكتي شريف كي أبو لهب كي عرب كأها قريش كأها آل بيت كأها النبي محمد أدير كهوها أي دول كدي هوس بدك محل لبض التاني بدنا النبي محمد أدير كيسي هاي بدنا عرب أوصل هاي أو هاي عجمي وهاي وفارسية محل بدنا عركة أصاري دم بدنا دول كهوست أسفل سافلين كدي ومحي وإسلام هذا لقول القيمة بدنية عبد الله بن عباس وحيد لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقول الرجل لرجل أنا أكرم منك فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله بل هذا آدي أدوه حول دقها نقول رارعية معناها كان عبد الله بن عباس أو ترجمانك القرآن كأب وحليه أركي ما يوقف كعمل فلي آية تاني وآية إلى الله هيدلو وحنو إذن أبورنا يلبي يددك إذنكو عينك كان إذنكو الشعبية لي قبائل الساعة سواء وسطان وحنا إذنكو ستمحي كإذنكو عبسنا بدن أركي ما يمركا إنه وقف آية كعمل فلود بدأتنا هدنا وننكو يدعو أنا كاستا أنا كالام دير ما جرتبوا لي ما جرى أحد كلام دير أحد كلام أو كقيمة بدن أو كقبسن إلا وحلقوك القبسية تقوض عيالوك القبسية تقوض عيالوك التقية أو لقوك الستار إمام البخاري في الأدب المفرد أي قصة وصاري العلامة الألباني وحديث كل حديث صحيحة واتها وعلى ما عدا عصبية هي إسقفان كقبيلة هي النسب هنا يكمل تاي أخلاق جاهلية إسلام كهر رئيسي دقن كيدي يتبع عدي هنا يكمل تاي وإسلام كنا إن أمره إن كفوا قالوا كن يران أي على إن أمره بلاغ لما صحابي أو بالين حوجا إسكير دقمي أو إسكير دعي دبدنا متبع قلدي ويسوي مركا كسوي شيء وقيشضي قيشقاسي أيها خطر يا شيء نبي أنا مركي مغلي ومنه أنصاري ومنه مهاجر ومنه يا للمهاجرين كان كلياتنا يا للأنصار رسول وركاس هذا والله ما مقع والله ما ضد الدين تكو أصله مهاجرين تو ومقع الدين وكو الدين توهجر ودي أنصار تو وكو الدين تو نصرية وقرقاري labadaba waa laba magac oo diiniya laakiin iyagoo magac diineed ah hadii loo adeegsado casabiyad qabyaaladii uu bay noqonayaan lamana ogola markaas rasuulku ka dhiibiyay waxaan afku waxa ku yiri ma baalu dacwa al-jaahiliya yeedmadan jaahiligi waa maxay yeedmadan jaahiliga ee suuqaysiga la isugu qayshanayo kooxaysi maxay tahay rasuulku leeyahay alayhi salaatu wassalaam وحاول تاكستي الضري دعوها فإنها منتنة حديث صحيحة والشيخان أي وريين دعوها يرمد الجاهلية هي عصبية هي قبيلة كنت برسول الله محايا يلي ووحب رمي وأريوي لكن تنصوا علي الله ينادو
وأقري الله ذاي برمون كذا ويقرن لأي ويقول قولتها ويقول معانتها ويقول روح بدنتها ويقول الله عيسى ويقول عيسى دي قودي بكش maxay ugu hori laadahay waxay ugu hori laadahay markii ay noqdeen xarwalwaan ayaa dabadeedna xarwalwaalku dee qurunka ma uriyo xarwalwaal bay noqdeen kuwa ay u hori laadahay qabyaaladu iyo casabiyadu xarwalwaal bay noqdeen xarwalwaalkuna saxarada iyo qurunka iyo qashinka ma uriyo ee waaba ku raaxaystaayo waaba buutaaba bahal cadarku dilo baa jira oo diga shifaysa gabaygii xaaji aadan bay ka mid ahay bahal cadarku dilo baa jira oo diga shifaysa faantada iyo digada iyo saxarada iyo qurunka iyo isagu kaasuu isagu ku noolaada haddaad aragtid wax qabyaalad ku tiraabaya oo ku yeedhaya oo wax ku kala saarsaaraya waa xaarwalwaal qashin iyo qurun aw waxa uu jiidayaana waa xaarwalka waa aragteen qabyaaladiistuhu waa xaar walwaal waxa uu jiidayaa wax ka dhiganayaana waa qabyaaladii iyana waa qurunka iyo qashinka xadiis kale ayuu keeni doona oo arrinta inoo sii sheegay waxa uu yahay xadiidka kan Abu Hurayra ayaa laga wariyay rasuulkeena suubani wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu idinka kaxeeyey jaahiliyadii iyo takabburkeedii iyo isla weynideedii iyo wixii la halmaalayay iyo fahamkii la isku faanaya aabbayaasha dadku waa labo mu'min iyo taqi faajir iyo shaqi dadku waa banu aadamna maxaa laga abuuray ciddii carada laga abuuray kolkaasaa rasuulku yidhi iska daayeen qoliyo isugu faanidda ay aabbayaasha iyo ab iyo laandheeranimadka isugu faanayaan jaahiliyadda amba hadday iska day waayaan waxay ahaanayaan kuwa ka liita ilaahay agtiisa ka liita xaarulwaa kii hadda aan sheegay ahlu sunan baa xadiiska wariyey axmed alcalaamatu alalbani xadiiska xadiis saxiix ah ayuu ku sheegay laba jeeroodleba rasuulku qabyaaladda iyo qabyaaladiistaha iyo waxa kan wuxuu ku sheegay wax uraya oo qurmay oo fal xadiiskii hore muxuu ahaa dacuuha fa innahaa muntina iska daayo waxani waa wax qurmoon oo uraya xadiiskan kalena muxuu ku sheegay haddii ab iyo laandheeranimadka la iska dayi waayo isku faanka cidda caynkaasi ilaahay agtiisa inay ka miciin liidato xarulwaalka waa la mid lama odhan ee xarulwaalkay ka sii hoosaysaa weeye macnuhu arrintaas dubaaqeenna iyo daakiradeenna iyo maankeenna iyo maskaxdeenna aggasho ha u dhaadhaco waa tahay xadiid kaleeto ayaa rasuulku wuxuu leeyahay afar oo ummadda ku sugan waa arrin jaahiliyadeed afartaasi oo yaala ayaan iska dayn waa in xagga xasabka iyo sharaftida iyo la ysku faano iyo in la yska duro la yska bushiyo la yska ceebeeyo xagga nasabka iyo waxyaabihii dadku ay samayn jireen oo ay ku roobdooni jireen xidigaha iyo waxa la midka ah iyo qayrada waqtiga marka dadku ay dhintaan iyo wixii la mid ah xadiiskii imaam muslim buu ah hadda sida soomaalidu maanta ay u dhaqanto qaarkeed amba in badan oo ka mid ah waxaad moodaa shaacirkii ama gabayaagii jaahiliga ahaa sidii uu yidhi ayaad moodaa in ay la mid tahay oo ahayd wamaa ana ilaa min ghaziya in qawad qawaytu wain tarshud ghaziya arshudi ninkan shaacirka ahaa jaahiliga ah oo waqtigii jaahiliyadda noolaa oo carabtu ay iscunaysay oo isdilaysay oo isku duulaysay oo wax walba ay iska baabi'inaysay yaa wuxuu leeyahay oo anigu wax kalaan ahay qabiiladeyda ghaziya un baan ahay taas baa waxay baxdo baan baxa waxay ahaato un baan ahaanayaa hadday hanuunto waa hanuunayaa hadday habowdana waa habaabayaa hanuunka iyo habowgaba qabiilkayga ay haya buu leeyahay soomaalida qaar baa maanta caynkaas markay leeyihiin fiqi bahdii kama janno tago iyo markay leeyihiin fiqi tolkii kama janno tago oo ay rabaan inay culimmada sasabtaan oo culimmadana ay dhankooda iyo xaggooda mariyaan oo culimmaduna laftigooduna sabankan maanta aynu ku jirno iyaga lafahantooda qaar ka midii waa jabeen oo qabyaaladii bay u jabeenoo fiqi tolkii kama janno tagadii baa dhacdayba oo nin waliba
qabiilkiisii iyo reerkiisii iyo xabaadhiisii iyo edagii yaraaya uu ka soo jeeday ayuu u qaatay mikrofon inuu difaaco dabeedna muxuu noqonayaa ninkii caalimka ahaa caynkaas ahaa xaroolwaal buu noqonayaa markuu heerkaa gaaro waa xaroolwaale caalim ma bal xaroolwaalka waa kasii liitaa ahwan cinda allahi min aljuclaan xaroolwaalka waa ka liitaa marka laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana waa nin kaleeto oo ka warramay waqtigaasi qabyaaladdu marka ay kacdo waa fidnad tolla ayaa reer hebelay markii la yidhaahdo dhibaatadaasi ninka qabaligii kan kaleeto ee tolla ayay yaa reer hebelay yidhi ma weydiiyo maxaa kugu dhacay iyo maxaa dhacay midna ee isla markiiba hubbuu la boodayaayo waa barbar ordaya war maxaa kugu dhacay iyo war xataa ladqabo iyo ma jirto war joog iyo maxaa ku helay iyo waa la ordaya haddaanna soomaalida laftigooda waa tii ay odhan jireen haddaanaan dhiig faraha gelin amba qolo ku foognayn waanaan fadhihi karin haddaanaan dhiig faraha gelin amba qolo ku foognayn waanaan fadhihi karin waxay waafaqsan tahay laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana daliil iyo xujo iyo maxaa ku helay iyo lama warsanayo ee warmaha iyo hubkaiyo baa lala yaacayaa liajli tolla ay baa le halka kan magaaladan aynu joogno ayaa nin baa wuxuu iga sheekeeyey waqti hore wuxuu yidhi qolyo askara baa ay kaxeeyey ma garanay ima sheegin markaa waxay u kaxeeyeen arrintu waxay ahayd xoogaa waa yare isla malaa waa raaci waayo dabadeedna waa yaro majuujiyeen waa yaro hantaa tuliyeen markaasuu war dahay war muslim ma tihi war ilaahay ma taqaan looma joojin markii dambe yidhi wallaahi waxaanan sanamkii weynaa u yeedhay ma fahmin iyagu sanamka weyn uu sheegayo dabeedna waa sii wadeen waa riixriixeen markaas tolla ayaa reer hebela qabiilkiisa oo qabaa'ilkan dee dhulka dega ka mid a dabeedna wuxuu yidhi marka qabiilka tolla ayaa nidhi oo qabiilku u yeedhay baa kuwii iwaday kii igu darraabaa yidhi dhulkaa farax ka qaad arma jooga dabadeedna haddana qabiilkii hooyaday ahaydna waa ku dhiftayo tolla ayaa reer hebela afar bay ahaayeenoo saddex buu yidhi xaggaasay iiga beedheen war ninkii bal horta maxaa ku wadi iyaga bay isu soo jeestay war muslim ma tihiin iyo shaqayn weyne war ilaahay ma taqaanin socon weyne laakiin tolla ayaa reer hebel markuu yidhi waa kuwii waday ee sii wadayso ayaa iyagii arrinka war maxaa ku wadi yaa ku weyn markaa dadkan dhexdooda yaa ku weyn qabiilkaa ku weyn mise ilaahay baa ku weyn waxaad loola yaaba hashatani halka ay dadka hoos u dhaadhay oo hadda weliba loo durbaantumayo oo aad iyo aad durbaantumkeedu hadda ugu badan yahay oo wixii ay eeday oo ay ku baaba'day ay maanta dib ugu jeeshay mala xoogaa markii ay 23 sannadood xoogaa ay yara daaqday oo ay ka soo xankaakubtay oo ka soo doogtay ayaa balaayadii iyo hoog iyo ba iyo habarhabartii iyo balaayadii iyo jinijaankii bay hadda dib durbaan dambe u tuntay maxaa dabadeed ay noqonaysa hoog iyo ba bay noqonaysa abu dar ayaa waxaa laga warinaya inuu tilmaamay xadiis dhacay isaga iyo nin kaleeto hooyadii buu xoogaa ku yar duray oo hooyadiioo madoobayd buu xoogaa ku yar tilmaamay arrintii baa saxaabigaa kale uu dhibsaday rasuulkiibuu u tegey wuxuu yidhi sida tan buu igu yidhi rasuulku u ashtakooday abudar baa loo yeedhay rasuulku muxuu ku yidhi yaa abaadar innaka mru'un fiika jaahiliya nin oo abudar la yidhaahdo waxaa ku jirta khaslad jaahiliyad baa ku jirta liajli maxay yabna sawdaa buu yidhi wax kale ma odhan kii hooyadii madoobaydow buu ina hooye madow buu yidhi xoogaa hooyadii buu duray arrintii buu saxaabigii ka cawday rasuulkay gaadhay rasuulku waxa uu yidhi waa cadhooday rasuulku weligii naftiisa uma cadhoon laakiin marka diinta xaggeeda lagu tallaabo oo lagu xadgudbo ayuu cadhoon jiray
وحاول يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية خسرت جاهلية أرن جاهلية ما ولي قدام بيسا إنك محادة سمية قبيل قلب ما مدح قوسمية قبيل اسكتن لوري غير هبل وقل غير هبل خير بمله غير هبل وعينك كان قبيل اسكتن هل كان الصحابي يقول نين هو يدي حوغا بولي جاهلين بقى كترتا قف قرأ هدي لي جاهلين بقى كترتا أرنتيسا حاضر ملايين ومدن وشيخ يا شريف بله مدح قوسنية أرنكي سدين قلنا سيدي إسلام تدي غير هبل ورقمدا مركز المياه تقانا أي تلمانا أقانا دتك بوالها هذا دتك سومالي بمؤسساسه نبقى الله يا أبي مركز أوحي لان ديره وأهلنا لان قابنا وأهلنا ما حيكون نقطة بالي وحي لان ديره وأهلنا عقوبة الشيء لان قابنا وأهلنا علقة بعد لي هذا يجمع عدل أبي لان ديره وأهلنا عقوبة الشيء لان قابنا وأهلنا علقة بعد لي عقدة بوقبة وايد waxaa iyadana soo qaadanaynaa waxa kan u dagaalankeeda iyo yeedhmadeeda khatarta ay leedahay qofkii loo dilo isagoo calan caynkaasoo indhala-aana ku dagaalamaya oo ku baaqayo cid ugu yeedhaya casabiyad amba casabiyad darteed u gargaaraya dilkiisu dil jaahiliya wey beri baa laba beelood oo qabyaalada isu dilaysa yani nin iska caadiya lagu diilay bal ka waran kuwan labada qolo ahaa isaga ku dhiso marka wal kuwa kan qabyaalada isu dilay isku baaba isku qulur beelay ka waran markaasuu yidhi inta naftu ka baxaysaa bay naarta ka sokeeyaan yani ninkani xataa sida saliim ugu fikraya kuwan soo maaha qabyaalada isku dilaya intay naftu ka baxayso bay naarta ka sokeeyaan laakiin isagu qabaliga ah ee qabqablaha ah ee dadka dabka saaraya isagu xaggaa kama fikiro nin baa la wacdiyey qabqable dagaala oo qabaliya layidhi miyaan ogeyn in waxaan lagu naar mudanayo oo naarta lagu gelayo may ogahay maxaa haddaa kugu wata wuxuu yidhi laba naarood baan kala doortay laba naarood oo maxay tahay labada naarood qabiilka aanu ishayno inuu iga adkaado waa naartii ifka haddaba naartii ifka iyo naartii aakhiro tii ilaahay iyo tii aadmiga tii ilaahay baan doortay buui waayo buu rag ciilkii cadaab ka dooray baa leeyi waa garanaya wax walbaa garanaya wuxuu leeyahy qoladaasi in ay iga adkaato waa naartii ifka weeye haddaba naartii ifka aqbali maaye tii ilaahay baan doortay buui aakhiro noo jeeda marka laga hadlayo dadku bahashani sida ay u dhex gashay dadka qaar baa moodaya wax sahlan iyo meel soke inay tahay bixasabi imrihi min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim rasuulkeenu wuxuu leeyahay qofkaba waxaa shar ugu filan inuu xaqiro qof muslima oo walaalkiisa xaqirid quursado hoos u eego qabiil kastii wuxuu ku leeyahay waxay isu yaqaaniin qabiilaystayaashu inay qabiilkoodu ugu fara badan yahay oo ugu aftahamo badan yahay oo ugu geesisan yahay oo ugu qiimo badan yahay qabaa'ilka kalena inay yihiin duuflaa gun ah arbaca nafaar aan qiimo lahayn wax xumaan oo dhan kuwa kale laakiin qabiil kastii wuxuu isu yaqaanaa isagu suxubbi ayuu isu yaqaana dhibaatada qabyaaladu leedahay baynu dhowr qodob ka taabanayna bal hadda dhibaatada ay qabyaaladu leedahay ayaynu wax ka eegiyeen hadda aad iyo aad u fiirsada abujahl iyo jamaaco uu la socdo waa waqtigii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa raggan ka mid ah akhnas ibnu shurayq iyo abu sufyaan
waxay mar dhageysteen qiradii rasuulka oo habeen aqrinaya qur-aankii bay dhageysteen akhnas ibnu shurayq baa abu jahl ku yidhi ya abalxakam maa ra'yuka fiima samicta min muxamed waataynu wax dhegaysanay oo maxamed oo qira aqrinaya aan maqalaya ka waran wixii aad dhegaysateed maqashay waxa uu yidhi hadalkaa isagaa u fiirsada waxaanu doodnay oo aanu murannay oo halgan yacni loolan baa wax naga dhexeeya annaga qabiilada uu yahay abu jahl iyo qolada cabdumunaaf qolada nebi maxamed waxaanu ku loolannay sharaftida wax la milgaha iyo maamuuska ayaanu ku loolannay haddii ay wax buudiyeen annana waa buudinay haddii ay yacni wax laysku majeerto oo ay sameeyeenna annana waa lahayn hadday wax baxsheen oo deeq ay lahaayeen annana waa deeq waa lahayn ilaa aanu noqonnay laba faras oo kala bixi waayey oo siman labadayadii qabo gobonnimadii iyo cisigii iyo sharaftidii baanu kala bixi weynay labadayada qolo oo loolamaya dayb haddaba wuxuu yidhi mar haddii iyadoo ay caynka ahayd maanta qoladii aanu ishaynay oo aanu kala bixi lahayn ay yidhahdaan nebi baa naga mid ah xaggaanu ku gaadhaynaa nimanka magac iyo maamuuska iyo sharaftidii miyaanu soo qabanaynaa taas baa jirta ma ogiye waan ogahay buu yidhi maxamed wuxuu wataa inay xaq tahay sidaa darteed baan weligay aqbali maayo muxuu aqbali waaye liajli qabyaalad muu aqbali waaye wuu garanayaa nabigu inuu xaq yahay wuu fahamsan yahay wuxuu leey labadii qabiil baa isdhaafaya oo labadii qole aan yani kala bixi lahaa hadday cabdumunaaf tidhaahdo dee annagana nebi baaba lagu jira loo waxyoonayo miyaanu sharaftaa sharaf u haynaa u helaynaa mayagu markaa ma ogolaanayo sidaasaan u aqbalay aad iyo aad ugu fiirso taa mid la mida waxa ay ahayd ninkii la odhan jiray musaylamatulkadaab ee nebinimada sheegtay habaarka qabay nin baa wuxuu ku yidhi waan ogahay inaad beenalow tahay maxamedna inuu run sheegayo waan garanay walaakina kadaaba rabiica axabu ilayna min saadiqi mudar hase yeeshee beenalowga reer rabiica waa qolada musaylama ayaanu kaga kalsoonahay oo ka jecel lahay runlowga reer mudar waa qolada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninka noocaasa iyo kuwa sidaas u fakeraya amba u hadlaya xaqii way garanayaan laakiin xaqii maxaa baalmariyey xaqii oo ay garanayaan maxaa baalmariyey qabyaalad baa baalmarisay oo indhaha iyo qalbiga ka tuurtay waxa aynu iskaga soo koobaynaa oo aan ku soo gebagabaynaynaa dhibaato fara badan oo aan la soo koobi karaynin ayay leedahay qabyaaladdu waa dhib badan tahay oo waxay tahay in ilaahay loogu toobad keeno xaajigii raxmatullaahi caleyh xaaji aadam axmed xasan oo ku magac dheeraa aadan afqalooc gabayadiisa waxaa ka mid ah waxna dilay bannaaniyad iyo ab iyo laan sheeg gabaygiisii waxna dilay mar kale wuxuu waxna dilay inkaarta casubay nagu abuureen inkaarta tacasubkee uu sheegaya yaa abuura waxaa abuura dad danlayaala dan wata amba ha noqdeen axsaab siyaasadeed amba ha noqdeen kuwo kale oo dano kale raba inay qabaa'ilka sida ratiga intay faruuriyo xidhaan u kaxaysta iyagu danta iyo muraadka ay leeyihiin taasuu wacdiga ka hadlay wax la dilay inkaarta casubay nagu abuureen gabayadiisii dadka la hadlayay waxaa ka mid ahaa abtirsiimo reer hebel ah iyo oday kufaan tuura waxaa aad iyo aad u qayliyey oo sare iyo hoosba soomaali ula hadlay wakhtigiisii cabdullaahi suldaan maxamed timacadde raxmatullaahi caleyh aad iyo aad iyo aad buu gabayadiisa intood badan aad arkaysaa isagoo ka hadlay qabaa'il iyo jeer oo la naco qaadkan lagu waashay qasdi jeer oo ay wada yeelato qowlka ku heshiiso qabyo weeye soomaaliyey qiiradaadiyo ugu horraysiiyey qabaa'il iyo jeer oo la naco qaadkan lagu waashay waa labada maanta nafta isugu keenay labadaa qaafka
qaad iyo qabyaalad baa ina daashaday oo ina dilooday oo ina baabacsaday waxba lama nooli marka waxa uu kal kaleeto leeyahay ninka duday dastuurka iyo waxyiga diinta ka carooye dugsi ma le qabyaaladii waxay dumisa mooyaan وهذا لا أدري أدو قتبين وأسي وضعي وحي هدينا الحمانتي يدلك يديني كلاقاتك حولي بلايدي لكلاقاتي دبدا كتشورنا شرعية ضاعد إلهي وسرعي هوسبا وقلها الله رحمة الله عليه دمانتو بإلهي هون حريستو waxaan jecelahay runtii inaan iska soo gabagabeeyo aafada iyo cudurka iyo baladaas dadka lagu alhuumay shaydaanku ku alhuumeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dadka ka shaafiyo oo dadka dad muslima oo walaala ah oo muslimka kale walaalkii weeyaan ilaahay inuu ka dhigo oo beerkooda burcad isu mariyo oo muslimka alle isu soo jeediyo oo iskarawsiiyo xaqa iyo xurmada iyo xuquuqda ay isku leeyihiin ayaan ilaahay ka baryaynaa wasala allahu calaa sayidina muxamed جزاه الله خير الجزاء شيخ محمد كلمة أكرمها بضن هي موضوع قيمة بضن تيسوك شدي ورحمن وقال بالله ورحمن موضوعي عنكم وكرا ومدنين نبع العليو ومركز تنلو وحيد اليو ويعلمه يا رهي انتبضن آتوا تداما ومدن لدنيا سؤال شكرا سائلك المحاولية أي شيخ كورا للرب والد وربح كالبيتية سكنة بحدي كالنسية وعلى الضرر ما كان شيخ سكنة شيخ هو بقول لي بحنا سكن كالبيتية تيك المسيح بعد runtii wax de sidaas jirto wax la yaab leh oo noocadaas run hadday tahay oo dhab tahay ninkaas waa rag soo bixi doono maalinta qiyaame isaga oo dhinac u lusha isaga ay labadaba inuu ka bixiyo ay ahayd cid isagu uu ka bixinayay oo xaq loogu lahaana dee inuu siiyo ma ay ahayd marka ninkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadda iyo dariiqa iyo hilibka habboon haddii uu jiro iyo dheggiisa ilaahay haday mooye wax kala garan maayo جزاه الله خير الجزاء شيخ سائلك المحاولية حفلة أفرطان بحر يقول الرجلتان من حيث شريعة الإسلام والقرآن amba afartan bax noqoto amba siddeetan bax amba saddex bax waxay doonaysa ma noqotee dumarka muslimaadka ah waxa ay wax soo dhalayeen tan iyo ambiyadii haddii laga helo dumarkii ambiyadu qabeen oo afartan bax dhigtay haddii laga waayo dumarkii ambiyada iyo saxaabada iyo dadkii khayrka badnaa u dhigan waxa ay u dhigtaan waa iska caddahay inay tahay deelqaaf inay tahay mana ay dhaqannada gaalada iyo laga raaco iyo ummadaha kale ee diinta aan shaqada ku lahayn waxa diinta looga eegaya wax walba wax laga eegaya ma sameeye dadkii laga khayrka badnaaye laga horreeyey waxa ma sameeye mise ma sameeye hadday sameeyeen ku tallaabso haddaysan samayn faraxa ka qaad جزاه الله خير الجزاء شيخ سؤال كلام حينها تقول أيضا مدن لله
يرون كان تو إنها سموعين نفترض إحنا مذوبين أن أكثر من مناطق بريان دم واحد والبا ويسبدلين واحد مودا واحد كتب كذا ينادو وحوجا دم كتير واحد مودا إلا ربع طيب واحد هنتي لقى كذا يوم إحنا مذوب الشيء يعني الشكل بدون باب كتير واحد إحنا مذوب ما بيصير أشياء اللي سكبر دري وحياة وعين كاسة ما حين تسكب مذوب يسدي qofka muslimkiina inuu xalaal meerto amba nin ha noqdo amba haweeney ha noqde ayaa habboon inuu xalaal meerto ayaa loo baahan yahay anoo bannaan haysta maxaa babac saaraya adigoo kuwayogii kaleeto helaya ee bannaanaa kii casa iyo kuwii kale iyo maxaa adiga wax shugulaysan amba shakibo ku jiro maxaa ku geynaya جزاه الله خير الجزاء سؤالي بسكتي وجوه شيخ سؤال عن المولدين عن الوضع الحين وحاليا هذا الرئيس الوقتي شيخ المردة إمام وعب ويريد نتيجة دليل مع دليل إن تعمل بحكر هذا الصدر وحوي والشيخ المردة إمام وعب إن تقول دليل الإمام مع دليل سواء المعطي هذا هو الصوت ما ينفع بحكا هو يا إمام إنهم دليل إمام دليل بالأرنتاسي وما عدا أيوة ما أنت هاي عدين بيوم أنت هاي وما تلامون جزاه الله خير الجزاء سؤالي نهاية أسبوع من الاحتياط وحتى سؤاله إسكا أصلي هاي مرة أنا شيخ ولود حتى سؤال دي شابك أنا مسك في سوق كلام عشان مسك الله من بيني وأنا مسك على سوق كلام من لا أدري وحسين سبحان الله صبري مسك ولود عدم واحد من الرواع وحكي كلام شريعة midabka aan xidhan lama oran hayso ee kaadana lama oran marka mas'alada safarada waa mas'ala soo wadaa waxa kale yana uu soo weydiiyay su'aal yana sabab caday qofka dhintay sadaqada ma ku baxda la adiwa bidee sadaqada sayru qaadaniya ma siin kara isagiiba ha loo bixinaya haddii malaha waxay u jeedaan loo bixin karaa haddii sidaa tahay waa sax loo bixin karaa sidaa جزاه الله خير الجزاء ان شاء الله حكي سؤال دعوي بدن وضدك اي سؤال صحيح ان شاء الله يجي رب الاستقامه لنا هذا وحكي ضد بدن وفلا يسوع وعصايا انه سدعي وهبه وحكي جل iyagana in loogu soo duceeyo dadka xanuunsanaya oo dhan ayay doonayaan si gaar ah balse halkan ka muuqda inaan tiri waxaa jira wiil iga buka oo yurub laga soo musaafiriyey oo gacan gaala ku jira oo doonaysa in si gaar ah loogu duceeyo intaasha insha allah alxamdulilah allahuma rabbana laka alxamdu lima razaqtana wa hadaytana wa qaddana wa rizqana wa laka alxamdu bilqur'an wa laka alxamdu كبت عدونا وحسنت رزقنا وخلت لنا وجمعت فرقتنا وحسنت معافاتنا وكل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم وحديث وسر وعلانية وخاصة وعامة وحي وميت وشاهد ووالد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد لما رضيت ولك الحمد بعد رضا أحبك على شأن أحبك على شأن ومن يسمع أحبك على شأن الله بصير الله بصير في عفوات ذكر الإسلام وحي تباليسن تبالد الله كرهاو وحي كربيسن كمان الله كرهاو وحي دباتو قبل أن بدت كم مقام أن بكتها إلى
إلهي سبحانه وتعالى هو الكليو هاي سوى الكليو وحي لم دون يا أمة خير طبعا يا أولاد خير طبعا وطيبين وصالحين الله سيو وحي كوح على دون يا الله سيو وحي دين يسديك الله كبدو وحي تعلوس يا روحي على النشا يا إلهي سبحانه وتعالى أكبر سيو إلهي وحده يتسلي ماذا خير طبعا ومع البركة الله يمسيه جمعنا بالأسلام واسعة والله الله يمسيه مسلمك الله يسوده سرطان اللي يتوقع يسوى هذا الله يحفظ عنه قلبك يشتاق ويتكرار ويتولد يقرأ يمكن الله يتسعر داعية الله صالح داعية الله هذه وحي يوصل الله صالح وحي يوصل الله سهل إلى أدرك وسمتني ساعة إلى يا حافظ علماء عاملين الله دور إلى يوم تسلم علم والإسلام والدعاء وهم كن سلا قلنا دورنا تبعوا دعته بتشرا إلى يعلم دعته إلى يسوع إلى يسوع عبده وسوق البابية هي دق وحي مسلمين أولاده ودماء قالوا دعته قليل إلى يتشرش يقولك إلى يتشرش الله يسوع سلامته الله يسوع سارة وفي المسلم يستدعى عيسى سجع إلهي وقلبي يوم إلهي وقلبي يسوع مراد سيد